dugsiga Nuur Abwaan ee magaalada Kismaayo ayaa xaflad qalin jabin ah oo si heer sare ah loo soo agaasimay u qabtay arday gaaraysa 100 oo ka qalin jabisay dufcadii saddexaad ee sanad dugsiyeedka taas oo lagu qabtay hoolka beerta maamuus. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida waalidiinta, bahda waxbarashada oo ugu horeeyo maamulka dugsiga Nuur Abwaan iyo marti sharaf kale. madasha oo ay fadhiyeen caruur aad u da'yar wajigooduna aad u qurux badnaa ayaa waxaa kalimooyin ka jeediyay waalidiintii oo dhammaantood tilmaamay inay farxad la qaybsanayaan ardayda dhameystay aqoontooda waxayna dhanka kale bogaadiyeen barayaasha iskuulka. aad baan ugu faraxsanahay wixii la soo baranay maanta la soo bandhigay oo annaga indhahan u jeedno hadda waxa la in loo meesho iska tagaan wax ma bartaan laakiin maanta markaati waxa noo indhahanaga waayo kelmad wiilashii reer gabdhaha istaagay والله وان ku jira waxay baranayeen wixii dibadda loo doonayay ama kii loo doonay meel loo doonayay wixii meesha ugu soo bandhigeen aad bay mahadsanyihiin waxbarashada si wada hakadana ka caysina macallinku waa ma sha Allah dugsiga diini iyo maadi inta waa isugu jira waxaan leeyahay ardayda waad aragtaan dhiirigelinta la idinku sameeyay heerkaas heer ka sareeyana waa la idin la rabaa inaad waxbarashada ku dadaashaan annagana waalidiintiin baan nahay qarash baa naga baxaya tacaal baa naga baxaya macallinkiina juhdi baa ka baxaya intaba waxa la doonayaa inaad ilaalisaan marka waxaan leeyahay hal dadaan leeyahay aad iyo aad baan runtii uga mahad celinaynaa si guud baa la dardaarmaynaa ardada haddii aan nahay dadka ka soo qayb galay ama waalidiinta waxaan leenahay dadaalkiina meel fiican ka gaara sida hadda u soo bandhigtaan si ka qurux badan u soo bandhiga idin leenahay wixii hadda ka dambeeyana insha Allah waxa idin rajaynayaa khayr iyo guul sida wiilasheena wax u barteen iyo gabdhaheena wax u bartay oo galabta isheena ay wax u hayso insha Allah macallinka waxaan leenahay Ilaahay kii kugu guulay Allah ka dhigo kulleeba awaal dad gasha waa badan tahay laakiin cid gudu waa yar tahay haddaan anu waalidiintana haddaan gudu weyno kulleeba kuwaad wax bartay ku gudi doono haddii Allah idmo waxaan ku leeyahay macallin Nuur soo dhawow ta kuwa qaatay iyo dawga nabigeena iyaguna iskama dabina weydigo basaateene diiradooda waxay saaran tahay daarta aakhire dunya qabiil uma kulmaan mana daneeyaan dalkan bay dadaal ugu jiraan darajadiisii jahligay dagaal ugu jiraan dabargo'isii dadaalkoodii miruhu dhalaa loo dabaaldegi dal iyo dibad in laga soo darbo doogan marayaay Allah naga door khaatumada waa lagu ducaystay oo nagu dil tawxiidka waan ka dalbanayaay dibna xuural caynta jannada nagu dambeysii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maamulaha iskuulka Nuur Aadan Maxamed ayaa goobta kaga sheekeeyay aasaaskii macadka baahida keentay iyo marxaladihii adkaa ee uu u dhabar adeegay si ay tacliin fiican oo tayo leh u helaan ubadka Soomaaliyeed. iskuulka waxaan furnay 21 bishii Maars 2017 haddana waxaan ku maraynaa 2019 waxaan u maraynaa taqriiban 3 sano wax yar baa ka haray bilooyin ka haray macadka waxaan u furay bacdama baahi badan ay ka jirto diineed yani luqadda ingiriiska ee tanada basically magaaladan laga barto ardayga kumaanan tixgelinaynin qiimo ama lacag arday lacag ma weydiino inta badan waxaan macnaha ka door bidnay inta lacag weydiin lahayn inaan soo saarno waa ayihii mustaqbalka bari ee Soomaaliya ardaygu waa nin Soomaaliyeed insha Allah taala wuxuu mudan yahay in la soo kobciyo ama la koriyo. qorshaha mustaqbalka ee iskuulka ayuu macallin Nuur sheegay inuu yahay sidii loo heli lahaa cilmi diini ah oo bilaash ah. iskuulkeena ama macadkeena waxa uu qorshaysan free religious education oo hadda aan wadno implementationkeedii oo ah aqoon diineed oo lacag la'aan ah quraanka oo lacag la'aan ah waan wadnaa laakiin asoo dhameystiran baan furaynaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala oo macad gaar ah waxaa marka hadda aan wadnaa system ah oo ku soo guuleysanay inaan sanadkiiba soo saarno dafca ama arday ka dhisan primary-ga ama dugsiga hoose dhexe oo aan u gudbino iskuulaadka waaweyn
iskuulkan gaarka loo leeyahay ee Nuur Abwaan ayaa horay u soo saaray da'yar waxbarashadooda halkan ku qaatay kana mid ahaa dufcadii koowaad ee ka qalin jabisay haatanna ka mid ah macallimiinta soo saaray ardaydan qalin jabinaysa maanta. Cabdulaahi Xuseen Kilaas, telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo.